deegaanka ku soo kortay aad waxa looga ciyaaraa dhaantada xilligaas dhaantada ma jirtay waa kala duwaneen oo anaga dadka dariiqada ah mutadayiniinta meeshayada dhaantada waxa looga yaqaan dambi maba taqriiban waxa la dhihi karaa inaan sanadkii mar cod meel ka maqal naadir waan yaabi jirnay yani waxaan garan xasuustaa in aniga markaan yaraa aabahay iga sheekeyn jireen ciyaar laynooma abuurin waxaan xasuustaa markii intaan meesha dariiqada ka tageen meel kale u guurnay beri dambe oo soo yara weynaaday ya habeenkii ciyaalku doo ku habeenkii laga tamo isu yimaado miyiga yani kaale caawa la isu yimido waan ku horleeyahay anaga meeshan aan soo degnay dariiqada meel ka baxsan way waxaan qabanaynaa waan ku markaas waan laga tamaynaa ani moogtay thaqaafadii dariiqada ay ugu jirto waxaan ku iri no inaga laynooma abuurina ciyaarno markaas ciyaalkii waxay ku dhaheen waa fulay wuu cabsanayaa because aniga meeshan ka imid thaqaafadii ka jirtay waqti lumis bay ahayd ciyaartani marka xaqiiqatan tarbiyo dariiqooyinku waxay ahaayeen meel waxbarasho meel tarbiyo qofka la baraya ahayd si weyn baa loola hadlayay adoo yar baa waxaa laga dhigayaa sheekh ani waxay sii saacidayay aabahayna sheekh waa kutub aqrinayay awowgiina sheekhi dariiqadu ahaa marka environment waxaan ku dhex jirayba berigaa dadku salaad dadka tukada way yaraan jireen annaga taqriiban reerka maba soo geli jirin ba qof aan salaad tukanin laakiin miyiga kale markaa tagto waxaa laga yaabaa reero dhan inaad aragtaan salaadba tukanba 40 jir kunta jir aan salaad tukan marka anagu waxaan la dhihi karaa waqtigaa saxwadii jirtay baan ahayn dadkii dacwada waqtigaa jiraan aroosyadoo kale xilligaas sidee loo gelbin jiray anigu markaan yaraa completely waxaan ku koray environment ka fogba arooska dhaantada khibro uma lahayn saan nidaamka xirnimada ugu jiray umaan soo qaxay oo Soomaaliya imid marka aroosyadii sidii loo dhigan jiray ma garanayo qaxi baan soo aadanaa waa soo qaxday halkee u qaxdeen runtii qaxa waxaa ka horreeyay dagaalkii 77 baan ugu dul bilowday anagoo caruur yar yara dugsiga dhigana runtii waxay nagu reebtay sida dadka Falastiiniyiinta oo kale Soomaaliya arag dareen qalaq ah waxaan garanayaa adoo xoolo la jooga ama magareerka jooga waxaana kormari jirtay dayuur wali inaan dayuurad maanaan arag dayuurad miiga oo dhagxantu qayliyaan waaba dhiciba yani waxaan xasuustaa maalin anagoo caruur koox ah intaanu kulligana waa isdul fuulay yani markaasna saasoo kala noqonay waxaan moodaynaa qofka sare inay baxashu ku dhacayso waa keliya inay dayuuradana kor martay runtii dagaalkaasi wuxuu nagu reebay psychology ahaan nacaybsho iyo qalaq iyo sas iyo cabsi dagaalka 77 hadii lagaaga sheekeeyo waxa fahmi karta ma aha hubkii u dambeeyay Ruushka oo Soomaaliya la soo siiyay xagga Ethiopia la siiyay la isku garaacaya marka anagii meeshan joognay runtii dagaalkaasi waxaan dhihi karaa naftayda saameyn weyn ku yeeshay oo dhinaca gobonimada iyo iska dhicinta ah dhinaca kalena caruurnimadayadii wuxuu ugu beeray qalaq badan iyo maaragtay naxdin badan iyo xasuus aad u badan kadib waxaa markii de Soomaaliya meesha ku jirtay 6 bilood baan xor ahayn oo calanka Soomaaliya ka babanayay iskuuladii baan loo furay maxay ahayd de ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa noo timid jamhuuriyaddii nolol waxaan galay weligana aan soo marin dad mas'uuliyiin oo Soomaaliya aan aragnay waa naloo khudbayn jiray dawlad kacaana noo timid oo waxaa naloo qaadi jiray maxay heesooyin xilliga ayaa ka xasuusataa madaxda ama dib hada waalidka oo kale aad u weydiisay ani markaa ma gaarisnay inaan madaxda barto laakiin waxaan garanayaa aabahay sheekh buu ahaa jabhadu la shaqayn jiray marka degmada Birqod intuu dadka soo shiriya casarkii waxa lagu boorin jiray inay dagaalka galaan marka aabahay intuu saa u wareejiyay xariijin round about ko kala ah oo dhaxda istaago uu soo dhigi jiray haye jannadii baan dhex taagnayaa soo galaya jannada dadku waa moogtahay dad aad saga qiiraysan qof kasta oo xariijinta gudaha soo gala jannadii buu soo galay wuxuu diyaar u yahay inuu qori qaato inuu jihaadka raaco marka anagoo yareer ma soo galin markaas dawladinku ay yareertiina ka baxa meesha marka waxaan garanayaa aabahay siduu abaabulka uga qayb qaadan jiray laakiin marka madaxdii imaan jirtay maanan waaci ma ahayn si fiican uma garanayo madaxdii dagaalkii ka bacdi dagaalkii marka qaxa nooga bilow sheekada markii ay Soomaaliya soo baxday waxaa la soo baxay indheergaradkii dhalinyaradii ilaa meesha Itoobiya iyo Kuubaan iyo Ruush balaayis la socotaa soo gashay xayaatadii dayuurada aan weligan arag dagaalkii waa naga dhaxayn jiray anaga Itoobiya laakiin dagaal Afrikaan uu ahaa dagaal technology aan soo galay oo adoo xoolaha la jooga dayuuradu saa ku dul hayaabayaan oo ceelashii la duqeynayo marka waxaaba noo soo baxday meeshii baan isla ololeyso dadka marka waxaad moodaa si waxa loo soo qaxayay aan caadi ahayn aan marka dhalinyarada waqtigaa soo baxday baan ahaa gaari Hargeysa ka yimid baan
soo raacay oo degmadii aan joogay yimid ilaa Hargeysaan gaariga soo saarnaa awowgay baa iga soo horeeyay Sayid Nuure oo Hargeysa deganaa isagaan u imid marka Hargeysa markaan cunug yaroo ka yimid Soomaali galbeed baan ahaa awowgay ma la noolaa wuxuu ii bilaabay marka kutub iyo in diinta wax badan la iga aqriyo lamiga markaad joogto waqtigu waa yaray laakiin meesha waqti badan baan hayay marka runtii awowgay sheekh buu ahaa aad baan uga faa'iidaystay sidoo kale masaajidda Hargeysaan ku taxmay oo rag badan oo culimo ahaa kutub aqrin jiray waxaan ka garanayaa sheekh hadda wiilkiisi uu joogo masjid joogo Sheekh Maxamed Kaariye la dhihi jiray runtii aad looga yaqaan marka Hargeysa oo duruustiisa wax ka qaadan jiray marka Hargeysaan 3 sano yaan joogay awowgayna waxaan ka akhrisan jiray masjidkan waxaan ka akhrisan jiray Hargeysa waxyaabo badan baa igu cusbaa marka cunug yar baan ahaa laami inaan arko wado board laho jay aan arki jiray moogta markaan xagga joogay wado wax madow ku daadsan yahay oo laami ah sanadka waa goorma Hargeysa igu horeysay 79 light shidan anaga waxaan shidan jiray bahal trig la yiraahdo faynus laakiin ma faynus trig waa ka yara weyn yahay faynus waa yar yahay kan waa bahal tuulooyinka laga shito yara weyn yaan shidan jirnay oo markii magaalo ay tahay laakiin light markii meel on laga dhigo wada daarmaya waxa igu horeysay Hargeysa baabuur tiro badan gawaarida yaryarka ah anaga gaari weyn oo laaja la yiraahdo qaaq yiraahdo qayliya oo marna Talyaaniga inuu ka tagay yaan arki jirnay laakiin gawaari yaryarka la wato iyo markaas ay igu horeysay guryo dhagxaan oo dhisan yani wax badan cunug yar baan haasaasan wax buu fiirin jiray iskuulo caruur labisan oo uniform aadayso oo maartay wax badan marka runtii waxay ahayd Hargeysa marka aniga caasimad aad u weyn aad u qurux badan Hargeysa magaalo cimilo fiican bay ahayd oo magaalooyinka Soomaaliya qabow marna haday kuleyl badan aan lahayn marna qabow u badan bay ahayd aad baan u jeclaa runtii xaafad Goljanna la yiraahdo ku noolaan jiray Hargeysa waxay ahayd geedo galool la yiraahdo bay lahaan jirto xaafado shacabka la yiraahdo Ingiriisku sameeyay oo gurigu wuxuu ku dhex samaysan yahay geedo hab raaxa Ingiriisku xaafadigu deganaan jiray bay kamid ahayd yani iyadana mar joogi jiray oo habareertii la joogi jiray dikrayaadkayga caruurnimada ama xasuushadii caruurnimadu Hargeysa qayb weyn bay ku lahayd runtii marka 2 sano iyo badh aan awowgay halkaa wada joognay awowgay wuxuu ahaa qof weyn oo la yaqaano dowladda Soomaaliya taqaano markaan Hargeysa joognay dowladda meel dejisay yaa haddana kadib naloo yeeray madaxweynaha Soomaaliya markaa joogay oo markii koobaad dayuurad aan fuulo 82 yaa ma qastay 3 bilowgeed inay baan u malaynayaa marka Soomaaliya Airlines dayuurad la dhihi jiray waa jirtay kuma soo gaarin aad qurux badan oo point ahayd marka aniga iyo awowgay familkii dayuuradaas aan lagu qaaday waxa bariga la sameyn jiray airportka Hargeysa kama soo degi jirin dayuuradaas dayuurada heerka ka soo degi jirtay way weyneed berbera ka soo degi jirtay marka waxaan lagu qaadi jiray basas ay Soomaaliya Airlines leedahay berbera markaan ka raacnay dayuuradu markay hawada gashay aad baan u cabsaday waxaan islahaa armay soo fakataa armay dhacdaa dad weli ma iloobin erayada af Soomaaliga ahaa aan halkaa ku maqlay maxay yeelay Soomaaliya markaan imid waxaan u imid af Soomaaligii oo si cilmi ah dawladda kacaanku intay horumarisay baa erayadii luqooyinka kala ahaa af Soomaali laga dhigay ka waan xasuustaa gabadhii sheegaysay marka waxaan diyaaradda hadalladii ku bilowday waxaan ka xasuustaa mudanayaal iyo marwooyin markii u horeysay maqlay ahayd erayo cusub ay wahayd aniga Soomaali ah mudanayaal marwooyin ku soo dhawaada Soomaaliya Airlines flightkeeda number inta ka duulaya airportka waxaan soconaa Muqdisho marka erayada maskaxdayda ku haray waxa kamid ah mudanayaal iyo marwooyin aad bay ugu cusbayd waxyaabahan xasuusta waxa kamid ah gabdhaha noo adeegayay runtii bariga dawladda Soomaaliyeed dawladdu waxay iska ahayd shuuciya gabdhahan xijaaban ma ahayn gabdhaha sida ragga iyo timo sida ragga u taagan oo la jaray bay lahaayeen waxay qabeen shaati iyo sarwaal halkana mara yar bay ku qabeen marka waxaan xasuustaa qof rukaabkii dadkii dawladda saarnaa kamid ahaa yaa gabdhihii mid kamid u damca inuu la hadlo oo yiraahdo kaalay wax baan u baahanahay markaasuu wuxuu ku yiri gabadhii naayaahe weli ma iloobin carruur markay yarta waxba way qaban moogta naayaahe 2-3 jeer ku yiri moogta markaasay soo noqotay way noo timid intay ku soo dhawaatay ismayna dhaweyna waxay tiri adeer
gabadhaadii oo kalaanahay maxadna ayaa haydihi runtaa buu wallahi waa an qaldamay adeer raalli marka yani dhinaca xadaara iyo reemagaalnima muuqatay dhinacana gabdhihii Soomaaliyeed oo intii dharkii laga dhigay oo shaati labada galbis ee sare u furan tahay qabta markaan hadda indha diini ku aqriyo barigaan wax ma fahansanayn laakiin markaas xadaari ku ahay